dawladihii xisaabtami jiray furus iyo room iyo yani wax way maartay xabasha iyo dawladaha jiray laakiin nabiga waxa laga soo dhexdiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi niman qabiil ah oo reer ah oo xoolo dhaqato ah oo iyagu isdhaca oo qadiyad midaysa ayna jir Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkan quraanka markuu u soo dejiyay wuu mideeyay mabdii bay rumeeyeen kitaabkii bay qaateen waxa weeyaan dhibkii ku jiray oo dhan iyo wixii haystay oo dhan bay ka baxeen rabbi baana quraanku sheegay subhanahu wa ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala ummadan wuxuu ku cizeeyay oo duligii kaga saaray oo sharaf ku siiyay waa diinta wuxuu rabbi quraanku yiri subhanahu wa ta'ala wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun billah subhanahu wa ta'ala quraankani sharaf buu ku yahay adiga nabi maxamed iyo dadkaaga wala la weydiin doona buu Allah yiri subhanahu wa ta'ala sharafkii kitaabka quraankii u soo hoyay ayaa waxay noqotay inay ku midoobaan colaadii ay kaga dhamaato qaybsanaantii ku iloobaan qabiilkii ku iloobaan intii iyo reebadiinimadkii ay kaga baxaan inay noqdaan ummad jirta oo caalamka lagu xisaabtamo waxay ku heleen kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo sunnah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi sunnadu leeyid وك عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافديسي مرء شام تغي oo ay soo dhaweeyeen ragii yaani ajnaada ciidamada macnaha wax way hogaankooda ah Umar radiyallahu anhu wuxuu yiri waxaan ahayn ummad dulli ah Ilaahayna subhanahu wa ta'ala kitaabkaas uu inagu cizeeyay ciziga markaan meel kale ka raadinayna Ilaahay uu ina dullayn doona buur ummadii reebadiyaha ahayd xoolo dhaqatada ahayd qabiilka ahayd aan caalamka waxba ka ahayn waxay gaadhay markii dambe inay hoggaanka u qabato adduunka oo dhan oo dawladoodu ay gaadho ilaa China ilaa xaggana ay gaadho yaani Andalus oo macnaha Portugiiska iyo Spain iyo ilaa Faransiiska atraaftiisa dawlad aan macnaha wax way iyadoo kale caalamka soo marin dawlad noocaas oo kale dhaliyeen horumaran caadi ahayn haddana muddo gaaban gudaheed bay adduunka dhan hoggaankiisa qabteen sirta isweydiinta la waxay tahay meesha ku jirta maxay tahay sirta intay iyo baadiye ka soo kaxaysay adduunka hoggaankiisa ay ku qabsadeen waa taa Ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'aluna kitaabka Ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala iyaguna si dhab ah oo daacadnimo ku jirta ay u gudoomeen ay u qaateen macnaha noloshoodu marka waxay ku istaagtay labada tiir oo kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo rasuulku uu sheegay sallallahu alayhi wasallam hadiiskii hadda sheekhu sheegay laba shay baan idinka teegay nabiga sallallahu alayhi wasallam intaad haysataan aydan lumaynin waa kitaabka iyo sunnadayda nabiga sallallahu alayhi wasallam labadaas oo waxay ku darsadeen haddana fahamkii saxaabada iyo salafka iyo ardadii nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ila nusuustu faham bay u baahan tahay marka la dhaqan gelinayo qaab in loo dhaqan geliyo ay u baahan tahay baa jira taana waxay kaga daydeen saxaabada iyo taabiciinta iyo salafkii bay kaga daydeen saddexda tiir ayagoo noloshoodu ay ku salaysan tahay ayay marka dhaqaaqeen waa midda u suurta gelisay Ilaahay inuu u kaalmeeyo subhanahu wa ta'ala adduunkana ay qabsadaan tayib noloshiisa ahayd waxa bilaabatay marka in masdarkii iyo sababtii lagu cizoobay ee wanaaga lagu helay in yar looga durko markii ugu horeysay isbedelku wuxuu ku yimid xukunkii qaabkii nabiga waqtigiisa sallallahu alayhi wasallam alayhi markuu dhintay kadib saxaabadiisii ay ku iimaan jirtay dawladdu ay ku iimaan jirtay ayaa isbedel ku dhacay kadibna way sii fogaatay nidaamkii xukunka iyo sidoo ku iimaanayay isluubku ku soconayay baa sii durkay dhanka kale markaad fiiriso aqeedadii fahamkeedii aqeedadii saafida ahayd sunnada weynaynteedii yaani suluukii nabigu ka tagay sallallahu alayhi wasallam waa laga durkay in yar bay wixii u qarsoomeen waxa soo gashay falsafo yaani ka soo jeeda reer galbeedka iyo Greega iyo Yunaan iyo ka soo jeeda
ayaa runtii soo gashay turaadkii iyo dhaxalkii nebigu ka tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa heer kutubta oo dhan ay falsafadaasi gashay oo xataa ayna ka nabadgelin xataa kutubtii culumta carabiyadu ayna ka nabadgelin usuulul fiqhigii kama nabadgelin xadiiska culimadii sharaxday kama nabadgelin macnaha waxa weeye maaragtay tafsiirkii kama nabadgelin falsafo waxaa soo gashay macaalimtii diintii astaamaheedii oo dhan runtii isbeddel ku samaysay waa la durkay waa la fogaaday xataa fiqhiga laftiisii meelo fara badan waxaa ka soo galay qaabkii uu ahaan jiray inuu isbeddel ku dhaco oo haddaad fiiriso maalan fiqhigii salafka ridwaanullahi calayhim ikhtiyaaraadkiisa fiqhiga iyo daliilku way isku lamaanyeen gadaal dambe waxaa soo baxday kitaab iyo saraad mucaqad ah oy muta'akhiriintii qoreen oo fiqhiya oo hal daliila uusan la socon ummaddii marka in yar bay sunnadii u halmaantay yacni waxa weeye maraajicdii iyo masaaniiddii iyo macaajimtii iyo kutubtii sunnada ayaa laga durkay tadbiiqeedii iyo fahamkeedii labadaba kadibna ummaddu say usuu durkaysay waxaa timid siraacii dheeraa iyo lagatankii dheeraa iyo dagaalkii dheeraa ay kula jirtay ummadaha kale in lagaga adkaaday sababta keenay in lagaga adkaadana masdarkii nolosha ee ciziga keenayay bay ka durugtay akhiiran waxay ku dambaysay khilaafadii muslimiinta hoggaankooda ahayd in laga takhalluso khilaafa alcuthmaaniya oo ugu dambaysay in laga takhalluso qarnigan hadda dhammaaday bilowgiisii khilaafadii marka laga takhallusay waxaa meeshii soo baxay faraaq weyn iyo muslimiintii oon lahayn cid matasha taasi xukumkii halkaasuu ku dambeeyey nebigeennaana sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh diinta shayga ugu horreeya ee laga taga xukumkuu noqon doonaa buu nebi yuri sal lla alay waslam shayga ugu dambeeya ama guntinta ugu dambaysee la furana waxay noqon doontaa salaadda buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh salaadda ugu dambaysa wax laga tago wax aynu weyno oo laynaga qaato oo layna seejiyana waxaa ugu horrayn doona xukumka buu nebi yuri sal lla alay waslam xukumkii marka waa baaba'ay tamhiilkii muslimiintu waa baaba'ay khilaafadii waa baaba'ay غربدي النبي كانوا تلمامي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء بنبي صلى الله عليه وسلم إسلام كوحو بلود إساقو قريبا تكعن بار لأ أن لا أركي كرين أدون كوردن كسوهر تشيدو ماشي بكون قندونا بنبي صلى الله عليه وسلم عليه مركا قربضا اللواد أوقلو دادك الله قربوضا أيو النبي صلى الله عليه وسلم تشنو شيء صلى الله عليه وسلم عليه قربدي اللواد بانك اللي مركا قربدي اللواد مراحش دي قيبة كميدا أيان حد كتشرنا يعني واحد أركيسا السنة بدعدي بك غالب نقط لا ديني كي دين تلهبو كغالب نقط كي سلوكيات كي سي أخلاق دي سهبونايين أيام معنا وحوي غالب نقضيه كي أخلاق لها ميل زاوية أبا لقدر كي بالشدي بوحو كان نقضي الدكاع عن بارل يعني وحوي حالات داسان مركا قارني أسباب تمركا كانتي ومدو ما أنت قد كان أي كل عان إيه ليب كان إنا قاري أسبابتا كنتي وحوي مصدركي عزدا إيا شرفك إيا سببكي شلي لغو عزوبي بالاغا دقاقي ميريهي سيبان مركا مانتا قرانينا وحا انتا إسا سود بيالي إيه مالي بمالي انتا كدام إسا لسي فوغاني أيان ميريهي سي قار كامي دا قرانينا نتيجة دو محايتا مركا يعني حالكو محوي حالكو وحوي هاي إنان أصو نقونا ماشي أن كهبوني وحالي لهذا ملاها تشيد يا حبابي مالين بالله صو نقضا jidkii aynu ka lunnay een ka khaldannay ee shaydaan iyo naf iyo gaala intay isugu keentageen ina garab mariyeen cizigeenu iyo sharafkeennuna ku jira waa inaan dib ugu soo noqonno oo nolosheenna o dhan ku soo celinno nolosheenna o dhan ku soo celinno cibaadaadkeenna yacni waxa weeye acmaasheenna qoyskeenna dhaqaalaheenna siyaasaddeenna kulligeed waa inaan raacinno ilaahay diintii subxana wa tacala oo kitaabkii dib ugu soo noqonno saa markaan u towbad keenno oon ilaahay subxaana wa tacaala raalli gelinno oo khaladkan ka galay rabbi subxaanahu wa tacaala ka raali gelino in sha allahu tacaala waxaan o dhan waa kala furfuranaya cizigiina biidni illahi tabaaraka wa tacala waa soo noqonaya laakiin intaan meel kale ka raadinayno dulligaas unbaan hoos ugu sii soconayno ceelka aan ku dhacnay unbaan salkiisa kusii soconayn haba yaraatee wax faa'iido oo soo kordhaysana ma ay jirto meeshii laga lumay ha lagu soo noqdo marka xalku waa saa asbaabta keentay muslimiintu dhibka maanta ay ku dhaceenna inta aan soo sheegnay iyo ina kaleeto waqtigu aan saamaxayno way hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi